السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد حسين واي ولكن سوماليانو دي ان اي سوماليانو 99 oo DNA ga Soomaalida jirka leh. waxaan rabaa inaan wax yar nii sharaxo walaalayaal oo ila fahma waxyaalaha ka socda caalamka iyo waxa DNA ga macnaheedu ay tahay. And are North Africans Africans or Arabians? What? marka aan nifahansiyo xogaa yariisa walaalayaal. aniga wiil oo ma baahi ba khatar ku iyo oo YouTube iyo video isloo sameeyay laakiin marmarka qaarkood riyad runta in soo sheeg waay walaalayaal wax yariisa anaga dhibaato naga heesta. marka waa inaan ka hadalnaa waxyaalaha yar oo dhibaato naga heesta iyo sida oo u bedeli lahayd because gadaal ma lagu noqon karo maanta dhan hore inaan u socono waay laakiin waxyaalo badan aan jecelahay inaan ka baxno oo si fiican ay u fahantaan Soomaalida si ay waqtiga isaga dilin oo waqtiga waxyaalo badan nooga halabin. wiilkan iyo gabartan waa taqaanaan waa aragteen oo maleena waa laba wiil iyo gabar oo barwaani carab xoogaa iska dhaleen dadka cadcadka Soomaaliya ma naqa waxay yihiin dad waa taqaanaan idinka laakiin aniga si fiican u kala qaan waxaan ka wadaa waxay yimaad dad wiilkan iyo gabadhan YouTube ay galaan wax filmaanay duubaan marka aniga dhibaatada naga haysta anaga oo Soomaaliya hadaan madownahay aan ii sheegaya dadkan oo kale hadda Yurub la wada yimaaday dadkan anaga waa ognahay Soomaha inayba Soomaali asli ay ahayn waa ognahay Soomaha waa dad aan liska dhalin xataa ma waa dad carab iyo barawani waxaan ka wadaa Portugiiski dadkii oo xeebaha Soomaaliya markay soo weerar jireen qabsan jireen kuwii liska dhalay kuwii carabaha businesska dadka Persian wixii imaanay Soomaaliya oo business ku jireen iska dhaleen wixii oo dhan Soomaaliya iska joogeen waqti badan muslimnimada iska yani dadka way soo dhaxgaleen waa iska nool yihiin ma sha Allah anagu dad waxaan qalbigeena aad u fiican Soomaali waa aragtaan cid walba ugu dhex jirto waan ogol in iska dhex nooladaan ya ee wax walba naga dhex sheegaan Bantugan xataa laga sheekeynaa aragtaan Bantu Africa geest Africa way nala degaan laakiin anaga wax ay nagu dhex jiraan ma laha ma fahanteen wax ay nagu leeyihiin ma laha DNA waa la isku lahaan karaa sax anaga dhan because Afrikaan nahay Afrikaan DNA giisa waa Afrikaan nooc walba ay noqon kartaa mid kale nishay oo color walba ay keeni kartaa ogaadaya xataa cadaan ay keeni kartaa oo indha bluega ogaadaya laakiin midda dhibaatada naga haysto waxa waa mid fiiriye annaga haddaan Soomaali nahay annagu dadka badankooda aan waxba kala aqoonin ma is yaqaanaan waxay ka sheekeeyaan carab baan ka nimaanaysan xataa dadka qaarkood daarood waxa lagu caayaa carab ay ka yimaadeen dadka ma naqaan daarood wax carab ay yihiin ma laha fiiriya DNA-ga ninka reer koonfur ee isaaq ah ama dhulbaanta ah iyo ninka hawiye waa isku DNA-ga ofisiyada saxda hadaa rabtaa inaad tagtaan taariikhda waa runtan midda aniga dhibaato iga haysta waxay tahay gabdhahan cadcadka barawaaniga ah oo soo galgalay meesha iyadii kuwa kale oo afar oo soo galgalo oo madaxyo waaweyn ya wiilasha Soomaalida waxa lagu caayo kala fiirsatan madaxooda weyn madaxayga muxuu u weyn yahay ma taqaanaa ya aqligayga weyn ma fahantay waa wax aan hadda aan iga sheekeyn siyaasad caalamiyan taariikh war waxa way ka faa'iideyso genetic superior baleda cid walba fiiriya waxay rabaan ka dhadhiciyaan adigu Soomaali baa tahay Soomaali wuxuu leeyahay culture-kiisa waxaan naqaanaa annaga cadaanka kaliya markay yimaadeen ma ka hadleyno carabta kaliya markay yimaadeen ma ka hadleyno waxaan naqaanaa culture-keena annaga oo ka sii weyn fiiriya 4-5-10 sano ka sii weyn ya ila South Africa ma aan iska dhaafno taas waa gali doonaa waqti dambe dhalinyarada cusub la baraya waxa soo dhan laakiin waxaan rabaa inaan iga sheekay gabdhahan cadcadka oo tagay YouTube-ka waxay leeyihiin DNA-geena baarayna way ogyihiin inay Soomaali run ahayn way isugu faanfaanaan guryahooda dhexdooda ya gabdhahooda ma siiyaan Soomaali wiilasha ma fiicanteen laakiin gabdhaha Soomaali way guursan karaan taas waa daciifnimada Soomaalida midda kale YouTube maanta lagu galaya caalamka dhan la istusinayo waxa lagu soo qorayaa Soomaali DNA ya hadhow DNA-ga marka la fiiriyo Soomaali DNA ma carab waayba dadki ya waa iyaga yaabanba ma aragtay wax ay yaaban yihiin mala waa wax ay ogyihiin this is show of why fiiriya marka waxaan gabdhaha Soomaalida oo wiilasha walaalahood ku mashquuleen inay maanta dhan caayaan walaalay aniga jinsiyadaada iyo sharaftaada baan u dadaaleynaa adiga haddii annaga aan nagu soo jeestid waqtigiya wiilasha ka lumay ee wixii kale ay ka daba carari lahaayeen marka please waxaan oo kale ilaashada gabdhaha nagu tumanaya naga ilaaliya annagana wiilasha tumanaya naga ilaalinayna so deal fiican ma aha maanta ka bacdina gabar Soomaali la caayay ma jirto because gabar Soomaali wax ka fiican ma bajiraba
ta is ixtiraamta wali laga hadlaya fiiriya naagti oo wasaqna runta loo sheegaya walaal wax oo fiican wax xun ma mugtahay waa wax oo progress al dhawxan waa ka baxaysa jaahilnimada oo ay isleedahay ilbaxnimo ah ilbaxnimadu maanta socota ee Yurub ka socota waa jaahilnimo taas ogaada mahadsanid